haliga raali ahaado meesha waa iska Soomaaliya internet-ka baxay marka waxaan rabay inaan ka hadlo dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday Muqdisho daraad qarixii ka dhacay gobolka Banaadir alxamdulillah ilaahay waa igu badbaadiyay waan joogay markay qaramada midoobay ay joogeen waan joogay laana doomi yariso aan la shaqeeyaa waxaan u ahay social advisor amba la taliyaha xagga arrimaha bulshada UN-ta markay baxday gudoomiyaha xafiiska wada galnay waan ka soo tagay shaqa meel u aaday haddana waa ku soo noqday waxaan rabnay inaan arrimo kale oo maqaamkan gobolka Banaadir ka wada hadalno wuxuu igu dhahay shirkan waa joogto arbaca walba la galo waxaa ku iri gudoomiye wali ma qadaynin maqaayad moolka ku taalan taga marka waa soo laabana waan ka soo baxay gobolka albaabkiisa meel laabaho moolka Muqdisho loo aado xamarweyne markaan maraayo nasiib daro waxaa dhacay qarixii haba dhacay waxaa idiin sheegaa gobolka Banaadir aniga please dadkii soo wacay iga joojiyo wicitaanka aniga gaarigayga kuma galo la iima ogolo waxaan dhigaa parking laga sameeyo barti ee ahayd hotel Curuba waa soo baxaa baaridan soo maraa baarid labaadaan maraa iskaanaan dhex maraa teleefanadaydan dhigaa boorsadaydan dhigaa waxa gacantayda ku jiraan furfura waana gabar boolisaa joogta waa la itataabana waa la isii baara waa galay meesha ilaaha idinku daariye intaasoo dhiba lagu galaayo ma idinla tahay aqliga ha shaqeeyo shabaab iyo qofka hore iyo naag koraa imaatay aa wax qarxisay no wax dhici karana ma ah hoolka sida la sheegay kaamirada hoolka ku taalo before 2 days ago agency la damiye wax laga soo shaqeeyay meeshas ka dhacay marka horta waa ayaan darana haysato laakiin maanta waxaan sheegaa oon caddaynaa in maxaa la yidhaahdaa wixii dhacay lagu kala heri doonin ilamaa reality-ga ay timaado haddii qarax meesha la geliyana qof baabuurkiisa meesha loo ogol yahay aa geliyey meesha sidee laguma gala annaga hana lagu baaraa dabiidacal nalaga fatashaa gaari xildhibaanaa loo diidaa senatoraa loo diidaa sometimes wasiiradaa lagu dhibaa sidee qarax loo geeyay marka waa wax laga soo shaqeey waa inside job marka Soomaali maxamede waxaa waaye hadda dadkaana gobolka Banaadir joogno waa wada dhimanaynaa kulli geeriya sugayna liana ma tashanayno wax ma iska celin karno ma ka hadli karno I don't know really ninkii madaxa noo soo qaado iyo hal doorkeeni waa la dilaa bas waxaa la dhahaa waa cambaareynay waan ka dhacnay waan ka yeelnay dabagal ma laha falka intuusan dhicin waa in laga hortago way noqon waysa saamaha waa investigation la helo waa in dabagal la sameeyo ma jirto waa dhimatay waa lagu duugaa laba beri Facebook inaa lillahi wa inaa ilayhi raajicuun saas ma ku dhamaan karnaa waa maya waa inaan kacno war dalka annagaa leh war dadka annagay naga dhasheen damiirka intuu naga aado damiirka ma naga dhintay maxaad ooranaynaa intaan ka badan war wallaahi bilaahi tallaahi rag badana xafiiskooda loogu galaa wallaahi dad badan asaan ku dhammaanayo injineer yariisi muxuu haleeyay waxba waa nin muwaadin Soomaaliyeed waa nin habeen iyo maalin soo jeeda waa nin u dhammaaday shaqo waa nin daacada oo miskiin ah
qofka yariisa oo qarax u geeyay wallaahi qofay dhaafayso qof kasta u geynay mas-uul kasta isugay waxaa yariisoo maray waxa ayaan darre nin shaqadiisa gudanayo in intii la dilo shabaab waayo wax shabaab la dhaho ma jirto no way shabaab wax la dhaho ma jirto yariisa wuxuu ku baxay inside job waxaa laga rabaa dadka amniga gobolka banaadir jooga amba dowladda federaalka wixii yariisoo dilay amba qaraxa soo geliya ayagaa laga rabaa wixii kaamirada hoolka damiyey ay 2 beri ka hor loo damiyey ayagaa laga rabaa ani gabaraa isqarxisay ma believe garaysni hoolka aniga arkay qarax qof ku xiranay darbi ma dumiyo daaqadana ma fujiyo wax meesha lagu xiray ani saa believe garaysana meesha ani waa galay waa arkay arxan darada ummadda lagu dhameeyay waan arkay 2 days wallahi shock ku jira shock ilaaha meesha iga badbaadiyay laakiin kan ku dhaawacmay iyo kan ku dhintaba waa walaalahayga waxaa waaye dadka dhahayo muqdisho qaraxda muqdisho ka dhacda muqdisho ka yeesho muqdisho hal qabiil kuma nool Soomaali Maxamed aan ku nool Soomaali Maxamed aan ku baaba'do dadka Facebook soo gelinayo Somaliland iyo muqdisho isbarbar dhigayo waxaas iska ilow meeshan Soomaaliya ku dhimatay dad islaana ku baaba'ay dad ummadda Ilaahay abuurtay ahaana lagu haligay walaalayaal ilaahay inta ka cabsano war ummad walba dalkeeda ayada u kacdo war damiirka aawe war damiirka ma naga dhinta war waxaan ka badan maxaa sugaynaa noo sheeg wallaahi bilaahi talah ayaan daro aan haysato I don't know maalin walba qofaa dhimanayso Facebook waxaa ka dhahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun heblow allaha caafiya ma aha that's not damiir war kan dibadda joogo dibadda u soo bax war ka hadal dalkaaga war kan dalka joogo soo bax war kaali war waxaan la iska celi karin adduunka ma jirto war cadow oo wiilkaaga oo walaalkaaga oo aabbahaaga ma iska qaban karin war waxaan waa siyaasad ma aha wax shabaab la dhaho war waa wax nolagu duminayo waa wax nolagu baabi'inayo wax shabaab la dhaho ma jirto yariisoo lagu dilay ma adinka ladinku dhaafaa wax damiir lama tihiin ya Soomaaliya qofka yariisoo maanta waxaa isku suugiya adinka midin dhaafaa qofka gabdho masaakiimiina oo guddoomiye degmaa dil adinka midin dhaafaa maya waxaan waxba ma ah naf walba maalin ay dhimanaysaa laakiin waxaa ku dhimatay inaa ogsoontaa fiican laana haddaadan ogaan waxaa ku dhimatay ayaa darra waa naga daaya inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun Facebook inaa ka tiraahdi war damiirkiina muujiya dadnimadiina muujiya intaan ka badan maxaa sugayna maxaa noo dhiman waxba nooma dhimano bas dalkaan waa loo tashtay dad lagu shaqaysanayaa joogo dad jeebkood baaso lagu rigidayaa waxaan fulinayo walaalkiis ka naxaynin ehelkiisa ka naxaynin waddankiisa ka naxaynin dadka muwaadiniin ma wada aha dad naxoo naxariista ma jiro intaan ka badan waxaan u malaynayaa in muqdisho lagu kala tegi doono ma kaxaynaa falastiin maa noqonaa dhagax maan dhulkeenu ku ilaashanaynaa waa maya ani waxaan dhihi lahay wallaahi ilaahi iyo waxaan arkay iyo waxaa u taagana wax kalena ma idiin sheegay Soomaali Maxamedey meesha ka kaca wallaahi maxamar waxaa joogaan
ilmaha hooyo lahayn oo aabba lahayn aabbahoodii hooydood iban meel lagu duugaayo ogeenoo hilibkooda la waayo waxay cunaan haysan jidka markaa maraysa calooshaa ku xanuunaysa cunug yar inta kugu dhego oo ku leeyahay ma qadaynin hooyo aabba ma qabo maanta ugu dambaysa ilaahay sadaqaa iga dhigaa islaam waaye ilaa iga hortay 7 ciyaal ahaya aabboodii hooydood waa iga dhintaan qado uma haayo idhaahdan maxaa anaga ka noolnahay maxaan ka xaragoonayna maxaan wax ka cunayna maxaan wax ka cabayna walaalkeenaba ayaan darra haysataa guri ah maanta Soomaali inta Muqdisho ku nool qof qarax uga dhiban ma jiro ma ku dhamaanaa ma isfiirsanayna maya inaa isfiirsana ma aha waa inaa kacno waa inaa runta ka hadalno war wallaahi wax shabaab la dhaha ma jiro nin diin u dagaalamayo ma idin la tahay masaajid walaalkiis inuu ku dilaayo ma aha nin diin u dhimanayo ma kula tahay inuu isqarxinayo ma aha diinta islaamka saas ma aha diinta islaamka yaa laga been abuurin ma aha diin mana loo dilaayo waa siyaasad waxaa la siyaasadeynayana waa dalkiina hooy weer biibilka muwaadinka ahay aaway meeshaan wax ka jiro male waxba ha suginaa inaan lama degaan noqonayo in dalka la qaato wax kaleba noo dhino kuwaana qaata injineer yariisow guddoomiyaasha masaakiimiinta ahay gabadha dhalinyarada aheedoo meesha ku dhiman gabadha miskiinta oo hadda la qaaday oo wejigeeda eber ah marka wejiga gabdhaha laga ataago raggana la baabi'iyey maxaa idin haraa intaa meesha ka kacdiin biliis kuwiina dibadda joogana muujiya soo baxa ka dhiidhiya waxa aa qabtaan tan kuwa xamar joogane anaa u taagan anaa ka hadal siinaa maamor intaan ka badan ma xamili karno wallaahi bilaah inaa been idiin sheegaynin nin yariisoo ka waxqabad badan ka fiican gobolka banaadir ka naxariis badan u soo mara gabadha aad dhehaysiin indhoosha way isqarxisa yaa huba miskiinad waaye meeqa sanay joogta gobolkaas meeqa sanay joogta asaa u miciinay asaa xafiis u furay asaa baahida gaarkaa dadka qabo naafada iyo indhoolayaasha dadka jiisiyaasha biil u qoray aaway maanta sariiruu saaraya yaa wax loo qaban karaa marka ma idinla tahay gobolka annaga aan silacan ku galayno boorsadeena la baarayo nala taataabanayo ina qof qarax wadato la sii daynayo maya baabuurta loo ogol yahay iridaas aa qaraxa geliyey runta waa taas runta in laga cabsado ma aha laakiin ana hal dardaaranaa idin leeyahay waxaa idin leeyahay ismuurtooy ha is allaynin dadka ku qufulan muqdisho hal qabiila ku dhimanayo hal qabiil kuma dhimanayo soomaaliya ku dhimanayso qabiil forget skiilown qabiil wax la dhaho qabiil ma nihin wiil iyo abtigiisa ana qabiil muxuu taraa waxba qabiil waxba ma aha isku aqoonsadaan ulguuri isku dhammaan isku faraxsanaada in lidin dilana lama nihin hal ummadaa nahay islaanaa nahay diinaa naga wada dhexayso dhaqanaa naga wada dhexeeyo dhalashaa naga wada dhexayso waa isguursanaa wiil iyo abtigiisaa nahay hal hafaan leenahay waa inaan isku hiilino maanta waa inaan tan ka kacno maanta waa inaan tan ka hadalno maanta ani maanta intaasaa idiin sheegay ani qaraxa ilaahay iga badbaadiya alxamdu alshukri hoolka dhan waxaan filaa in lagu jiro 9 daqiiqa muddo ah guddoomiyaha saas uu u galay ana jarjarda ka soo degtay albaabka ka soo baxay xamar weyne moolka u socda ma gaarin waa ali 8 minutes to 9 minutes that's it inta sala fadhiyo hoolka qaraxa ka dhacay subxaan allah maxaa la haleeyay waxba
وحبا الحمد لله الشكر أنا إلهي وإيقبت بادية لكن وحاكا حما هاي وحي ماش كدعي يقول كسيد لغو قال أن أوغي أمني جيسا وأيان ضرر نينك ماش لربي إن لغو ديلانا نينك أو هاي يا دافع صومالي ريسو بادي قرح لبيكس يا دافع يا لا دافع وماشا وحاك سعوت يا لا نولانين يا دلك وحلو قوانين ماشا كسعوت annaga waxaan rabnaa inaan noolaano annaga waxaan rabnaa dalka inaan wax u qabano kii ka xun asaga u taalaa am Somali woman ninka shaqeynaya waa Soomaali waa inaan ixtiraamo waa inaan madaxweyne ixtiraamo waa inaan ra'iisul wasaare ixtiraamo waa inaan gudoomiye baarlamaan waar nin shaqaalaha ugu liito biitooniga dhulka xaqay waa inaan respect siiyo waay qof islaana dhigiisa waxa la shana waay waxaa laga rabaa ummadda shacbiyadda adduunka ku nool ma qaataana khalad annaga way u qaadanaynaa Soomaali hadana way u qaadanaynaa xaala dhahay waxaa la rabay ninka qaramada midooba ka socda in la dilo daqiiqado ka maqnaa 2 hours and half nearly 3 hours oo ka maqnaa after daado qarax dhacay qarax dadkii loo rabay waa la helay saas waaye war la tadawolo ma jiro been ma jirto baladkan Soomaha baladkan ilaahayna waa caawina ummadda ku nool naxariisna ilaahay waa u soo dejin doonaa insha Allah ta'ala waana laga diidina waa laga hadlaa wixii sameeya falkaana ma laga tabaharaayo waa u dhimanaynaa dhaawac yariiso waa u dhimanaa aniga bikiin maahay number 1 dhaawac gudoomiyaha ku dhacay waan u dhimanaa waan hadlaa ama ani qof dilaa baya aniga waa hadlaa one day adibna one day hadlaa marka waxaan leeyahay Soomaaliya gudoomiyahan u soo duceeyo in ilaahay caafiyo ka kiciyo cadawgan ilaahay jibiyo السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هليقر على هذا ماشي واسك صوماليا انترنت كابحاي marka waxaan rabay inaan ka hadlo dhacdadii xanuunka badneed ee ka dhacday Muqdisho daraad قريحي إنك كدعي قبل كبنادر أنا الحمد لله إلهي وقفت بهذه وان جوجي markay qaramada midoobe ay joogeen waan joogay laana doomi yariso aan la shaqeeyaa waxaan u ahay social advisor amba la taliyaha xagga arrimaha bulshada UN-ta markay baxday gudoomiyaha xafiiska wada galnay waan ka soo tagay shaqa meel u aaday haddana waan ku soo noqday waxaan rabnay inaan arrimo kale oo maqaamkan gobolka Banaadir ka wada hadalno wuxuu igu dhahay shirkan waa joogto arbaca walba la galo waxaan ku iri gudoomiye wali ma qadaynin in maqaayad moolka ku taalan taga marka waa soo laabana waan ka soo baxay gobolka albaabkiisa meel laabho moolka Muqdisho loo aado xamar weyne markaan maraayo nasiib daro waxaa dhacay qaraxii haba dhacay waxaa idin sheegaa gobolka Banaadir aniga please dadkii soo wacay iga joojiyo wicitaanka aniga gaarigayga kuma galo la iima ogolo waxaan dhigaa parking laga sameeyo barti ee ahayd hotel Curuba waa soo baxaa baaridan soo maraa baarid labaadaan maraa iskaanan dhex maraa teleefanada idaan dhigaa boorsada idaan dhigaa waxa gacantayda ku jiraan furfura waana gabar boolisaa joogta waa la itataabana waa la isii baara waa galay meesha ilaaha idinku daariye intaasoo dhiba lagu galaayo ma idinla tahay aqliga ha shaqeeyo shabaab iyo qof hore iyo naag horaa imaatay wax qarxisay no
wax dhici karana ma ah hoolka sida la sheegay kaamirada hoolka ku taalo before 2 days ago agent senate la damiye wax laga soo shaqeeyay meeshas ka dhacay marka horta waa ayaan darana haysato laakiin maanta waxaan sheegaa oon caddaynaa in maxaa la yidhaahdaa wixii dhacay lagu kala heri doonin ilamaa reality-ga ay timaado haddii qarax meesha la geliyane qof baabuurkiisa meesha loo ogol yahay geliyey meesha sidee dheel laguma gala annaga hana lagu baaraa dabii dacalna laga fatashaa gaari xildhibaanaa loo diidaa senatoraa loo diidaa samtaan wasiiradaa lagu dhibaa sidee qarax loo geeyay marka waa wax laga soo shaqeey waa inside job marka soomaali maxamedey waxaa waaye hadda dadkaana gobolka banaadir joogno waa wada dhimanaynaa kulli geeriyaa sugaynaa liana ma tashanayno wax ma iska celin karno ma ka hadli karno I don't know really ninkii madaxa noo soo qaado iyo haldoorkeeni waa la dilaa bas waxaa la dhahaa waa cambaareynay waan ka dhacnay waan ka yeelnay dabagal ma laha falka intuusan dhicin waa in laga hortago way noqon weysa saamaha waa in investigation la helo waa in dabagal la sameeyo ma jirto waa dhimatay waa lagu duugaa lama beriyaa facebook inaa lilaahi wa inaa ilayhi raajicuun saas ma ku dhammaan karnaa waa maya waa inaan kacno war dalka annagaa leh war dadka annagay naga dhasheen damiirka intuu naga aado damiirka ma naga dhintay maxaad ooranaynaa intaan ka badan war wallaahi bilaahi tallaahi rag badana xafiiskooda loogu galaa wallaahi dad badan asaan ku dhammaanaayo injineer yariisi muxuu haleeyay waxba waa nin muwaadin soomaaliyeeda waa nin habeen iyo maalin soo jeeda waa nin u dhammaaday shaqo waa nin daacada oo miskiin ah qofka yariisa qarax u geeyay wallaahi qofay dhaafayso qof kasta u geynay mas-uul kasta isugay waxoo yariisoo maray waxa ayaan darre nin shaqadiisa gudanaayo in intii la dilo shabaab waayo wax shabaab la dhaho ma jirto no way shabaab wax la dhaho ma jirto yariiso wuxuu ku baxay inside job waxaa laga rabaa dadka amniga gobolka banaadir jooga amba dowladda federaalka wixii yariisow dilay amba qaraxa soo geliya ayagaa laga rabaa wixii kaamirada hoolka damiyey ay 2 beri ka hor loo damiyey ayagaa laga rabaa ani gabaraa isqarxisay ma believe garaysni hoolka aniga arkay qarax qof ku xiranay darbi ma dumiyo daaqadana ma fujiyo wax meesha lagu xiray ani saa believe garaysana meesha ani waa galay waa arkay arxan darada ummadda lagu dhameeyay waan arkay 2 days wallahi shock ku jira shock ilaaha meesha iga badbaadiyay laakiin kan ku dhaawacmay iyo kan ku dhintaba waa walaalahayga waxaa waaye dadka dhahaayo muqdisho qaraxda muqdisho ka dhacda muqdisho ka yeesha muqdisho hal qabiil kuma nool Soomaali maxamed aan ku nool Soomaali maxamed aan ku baaba'do dadka facebook soo gelinayo Somaliland iyo muqdisho isbarbar dhigayo waxaas iska ilow meeshan Soomaaliya ku dhimatay dad islaana ku baaba'ay dad ummadda ilaahay abuurtay ahaana lagu haligay walaalayaal ilaahay inta ka cabsano war ummad walba dalkeeda ayada u kacdo war damiirka aawe war damiirka ma naga dhintay war waxaan ka badan maxaa sugaynaa noo sheeg wallaahi bilaahi tallah ayaan daro aan haysato I don't know maalin walba qofaa dhimanayso facebook aan ka dhahay inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun
heblow allaha caafiyo ma aha that's not damiir warkan dibadda joogo dibadda u soo bax war ka hadal dalkaaga warkan dalka joogo soo bax war kaali waa iska war waxa la iska celi karin adduunka ma jirto war cadow oo wiilkaaga oo walaalkaaga oo aabahaaga ma iska qaban karin war waxaan waa siyaasad ma aha wax shabaab la dhaho war waa wax noolagu duminayo waa wax noolagu baabi'inayo wax shabaab la dhaho ma jirto wixii yariisoo lagu dilay ma adinka ladinku dhaafaa wax dameer lama tihiin miya soomaaliyeed qofka yariisoo maanta waxaa isku suubiya adinka midin dhaafaa qofka gabdho masaakiimiina oo guddoomiye degmaa dil adinka midin dhaafaa maya waxaan waxba ma ah naf walba maalin ay dhimanaysaa laakiin waxaa ku dhimatay inaa ogsoontaha fiican laanna haddaadan ogaan waxaa ku dhimata ayaa darra waa naga daaya inaa lilahi wa inaa ilaahi raajicuun facebook inaa ka tiraahdi war damiirkiina muujiya dadnimadiina muujiya intaan ka badan maxaa sugayna maxaa noo dhiman waxba nooma dhiman bes dalkan waa loo tashtay dad lagu shaqaysanayaa joogo dad jeebkood baaso lagu rigidayaa waxaa fulinayo walaalkiis ka naxaynin ehelkiisa ka naxaynin waddankiisa ka naxaynin dadka muwaadiniin ma wada ahaa dad naxoo naxariista ma jiro intaan ka badan waxaan u malaynayaa in muqdisho lagu kala tegi doono ma qaxaynaa falastiin maa noqonaa dhagax maa dhulkeenu ku ilaashanaynaa waa maya ani waxaan dhihi lahay wallaahi ilaah iyo waxaan arkay iyo waxaa u taagana wax kalena ma idiin sheegay soomaali maxamedey meesha ka kaca wallaahi maxamed waxaa joogaan ilma aan hooyo lahayn oo aabba lahayn aabbahood iyo hooydood iban meel lagu duugaayo ogeeno hilibkooda la waayo waxaa cunaan haysan jidka markaa maraysa calooshaa ku xanuunaysa cunug yar inta kugu dhego oo ku leeyahay ma qadaynin hooyo aabba ma qabo maanta ugu dambaysa ilaahay sadaqaa iga dhigaa islaam waayeelaa iga hortay 7 ciyaal ahaaya aabbood iyo hooydood waa iga dhintaan qado uma haayo idhaahda maxaa anaga ka noolnahay maxaan ka xaragoonaynaa maxaa wax ka cunaynaa maxaa wax ka cabaynaa walaalkeenaba ayaan darra haysataa guri ah maanta soomaali inta muqdisho ku nool qof qarax uga dhiban ma jiro ma ku dhammaanaa ma isfiirsanaynaa maya inaa isfiirsana ma ah waa inaa kacno waa inaa runta ka hadalno war wallaahi wax shabaab la dhaha ma jiro nin diin u dagaalamayo ma idan la tahay masaajid walaalkiis inuu ku dilaayo ma aha nin diin u dhimanayo ma kula tahay inuu isqarxinayo ma aha diinta islaamka saas ma aha diinta islaamka yaa laga been abuurin ma aha diin mana loo dilaayo waa siyaasad waxaa la siyaasadeynayana waa dalkiina hooy weer biibilka muwaadinka ahay aaway meeshaan wax ka jiro male waxba ha suginaa inaan lama degaan noqonayo in dalka la qaato wax kaleba noo dhino kuwaana qaata injineer yariisow guddoomiyaasha masaakiimiinta ahay gabadha dhalinyarada aheed oo meesha ku dhimatay gabadha miskiinta oo hadda la qaaday oo wejigeeda eber ah marka wejiga gabdhaha laga ataago raggana la baabi'iyey maxaa idin haraa intaa meesha ka kacdiin bliis bliis kuwiina dibadda joogana muujiya soo baxa ka dhiidhiya waxa aa qabtaan tan kuwa xamar joogaan